qoyska Cabdi Makaraan oo loo garoon yahay Xuseen Xaaji oo ka tirsan jufada Makaraan Faqi ee balweynta Masar Restaurant Sora ayaa maanta shiray kaga hadlayeen midnimada qoyska ku qabtay gudaha magaalada Tanwajeer. Sidoo kale qoyska ayaa madasha shirkaasi ku caleema saartay hoggaan cusub oo gorfayn doono qoyska waxayna caleema saarteen Cali Biriq Cali waxaana sidoo kale madashaasi ka hadlay dhammaan shakhsiyaadkii ka soo qayb galay xafladaasi caleema saarka. سجال كان أنت عدة لماذا بترك لماذا وأنت عن شمن عندورن مركا هذا وعن سكوج يرني وشمن كي أيان أنتو صرفنا كوميتي دايني وعدة هجاميسي وعدة دقيسي مدكلا هرت عدة هذا انكر شيء وهذا يرتي وعن إيش جايا عدة مقعد وحسين وحاجي الله فرح مكران كل درس ويدي عد كوف ترسل ما حاجي مدرة يا يصير سبعيها حسين حاجة مركا حددا ما أنت واحد بعدي ما أنت وحنسكون ماني أنت ولكن عالم برق على برق أنت أنا عالم صارنا أو الأشهر ديمنا دعيت له راح حسين وحاجوا بحيدونا سنن أو جامع ما أنت عرفنا نسكون ماضي يا قرابة كلنا صار عدنا ويرنا إنا دويسين يوم بهنا مدة كلا عدنا المحلي رعدوا حسين وحاجي اللي رالي راها مركان إلهي معبود الله نقرب قلا نكان الله بحني وين تعده قامي أنرمنا وما أنت ماشي على مسارين وأنا اللي راها عالم برق علي مركان غير الله نوافج طولهم سوم مان وحنسوم عندي كرزوني يسوى قبض إلى عارك إلى عقرشة يسكتوا مان وأنا جو إهدى عسيب شار waxaan soo dhaweynaynaa qaraabada noo martida noo waxa madda kale nooga xigto waxa way midnimada cidda iyo jeemanka aan la soo baxnay insha Allah jeemanka noo soo dhaweeyo waxa dad loo yeerteen in walaalkeen caalam birqma loo caleema saara oo laga dhigaa jeemanka cidda Xuseen Xaaji waan ku raaxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana in la qaadnay intaas ka bacdi waxaan soo u sheegaynaa in cidda midnimadeeda aska shaqeeya iyo cidda isku xirkeeda haddii laga dhigin uga German وعدة لقى دي أو عدة كده حسكو كامل عدوين تا دحقل أوديها كتاي مكران فقفارحة عدة وحدو تاي أودي أجو نكذا على عم قوس لو ما عابه القوس سكو كوابها عدة دحقل أوديها تاي وعلى ما عابه صدو عدنا وحاوي سي نصد ويس أدي هذا وما سنتهاي مد وحنقول شيء مركا على مسار كنقل على مسار عالم برق جقد ما هن عيار ما جمن ماذا ما عيار جمن ماذا وحاوي وحاوي عليس iyo mas'uuliyad ku saaran way maanta daloo magacaaba waxa laga yaabaa 9 saacadood min lagu soo wac marka waxa iga dardaarnay inaad cid u dhigay furnaata cid wanaageed iyo horsocodkeed iyo aska shaqeysa waxaan hal fariin aanu farahay ninka mas'uuliyadda loo dhiibay mas'uuliyadda lagu dhiibay waa mas'uuliyad aad u culays badan mas'uuliyad aad iyo aad u weyn dad badan aad hogaaminaysa awal hore ilmahaadii islaantaadu bad odu waheed hadda qabiil iyo qoys dhamaad hoggaan u tahay waxaan rabaa horta taas ilaahay kula garab gala adiga inaad daashado laga soo sheegin insha Allah arinta ujeedada kulay waxa waa jeeminkii hore oo tawane agartay walaalkiis iyo inaad xilka cid ku wareejiyay cid reebka Xuseen Xaajeed noogu wareejiyay xaflad maanta noogu yeeray sidaas waa asanakii talka riyaab dhax qaad oo wax wanaagan talka horseed Allah ka dhiga annaka dacoon baa meesha u imaanay caleem saarka inaan ka soo qayb galna aan u mahad celinayna jeemanka caalam barq aniga caalam dajaran ay garan laga ciyo waa loo qaanaa iyo jeemanka waana aad isku la shaqeynaa committee baan la soo galnay waana aad ugu fikiray kuma caddaas hogaanta loo dhiibi doona yaani inay soo dahdaan u maleynay moogi mar hore u maleynay in loo dhiibi doono jeeman waa mahadsan tahay soo dhawaaw saakiin meeshan wixii la isku imaaday ninkaas odayga oo caalina in la caleema saaro in laga dhiga jeemankii qowska reer abahay reer abtigay laga dhiga la isku imaaday ilaahay ha barakeeya ninkii jeemanka laga dhiga cid reer abtigay laga dhigana عدة لما لو قوس كياس وهذا مثلا واحد قوس ماله كليس لا صار مجران ومال وجوجا مجران عدة لأنه ماشي تكون هذا مثلي دونا ما دام من كنين أضي لقى دقي ومدة مثلا أول جريس إيو قوس وصل مثلا لكن تصاوص عام بها ومدة مثلا سودوا ما أنتوا حماشة الحل وليس بدن لوجو ديبي نوالك ينادوا جعلها وحال الله يقول رجينا هي أن كف الشلمن ونكو عبوبين وليس أصل إلهي أصف ضيّه وبلشدة يعد يسكانه وما رتاي وحي دليلهم تبنينا naga tira
inuu ilaahay nooga dhigo cidda reer aabbahay beesha waqtigan xaadirka ah waqtiya xasaasiya lagu jiraa waqtiya iska dhib badana lagu jiraa oo siyaasad soo fool saartay waqtiga waddanka waxaan ilaahay ugu rajaynaa annagana sida aan ku joognay si ka fiican inuu ilaahayna waafajiyo qalbi istaara aanan yeelanin faraq istaara ma ogiyo aan kala firaarin wejigayna iyo waajibkayna meeshuu aas ahaada qabiilka dantiisa aan ka wada shaqayna gabar iyo wiil jeemankan la soo dhaweyn lahay aan aqoon badan aan u leeyahay meelaan iskula soo kornay waa u qalma waa mudan yahay inay xilkan la soo doorto soo dhawoow waana kula shaqaynaynaa qoyska oo dhan waad masalaysaa meesha maanta lagu magacaabay oo jeemanimeed ah meel kasii weyn waa rajaynaynaa inaad ka soo muuqato dad ileeyahay soo dhawoow ushii maanta maxsuu dhiibteen nin maasha allah horta waxaan ku leeyahay hambalyo aan ku leeyahay chairman tan kale waxaa waaye waqti siyaasa ayaa soo dhow cidda intay is abaabusho oo chairman lahaada shay aad iyo aad u muhiim waay waxaan rabaa ciddan raabay markay siyaasaan loo soo aada nin oo la soo waca oo cid raabay u baahan la dhah waa inta la haysto waay maantana waa aad aan u faraxsanahay intuu ninkaas u noqday walaalkay caalim biriq cali maxaa yeelay meeshaa lama raba ninkaasoo siyaasa isku ordaa intay cidda mid as ugu ulshido lama rabo cidda meel ay ku dhan tahay oo madaxadeeda joogto ayaa la rabaa intii wixii laga hadlaa siyaasi hataa wax kasta hataa inta lala hadla aada u mahadsantihiin waa og tihiin waqtiga hadda aan joogno oo xaadirka ah bulshada ama qowska waxa kaliya xas ku noolaan kara waxaa waaya inaas qaba madax waqti waxaan ku jirnaa waddanka noloshiisa ay gashay xagga siyaasanimo marka bulshada waxay ku noolaan qabtaa waa inay qabto hoggaan marka jeemanimadana waxay ka mid tahay maaragtay hoggaanka cidda lagu hogaamin lahay ayay ka mid tahay caalin biriq cali oo isna lacalimo saaray maanta ayaa ballanqaaday inuu si weyn uga shaqayn doono midnimada cidda isagoo sidoo kale shaaca ka qaaday inuu cid u horsadi doono ay tiinkooda wacaan waxaan aad ugu faraxsanahay cidda midowday oo maaragtay inay israacaan qof maanta gees u taagan ama qofka nuuca isku jiro ilaas xilka lidii waa xil aad ugu culus xilka wax sahlan maaha ninka alla u sahlan ilaas waxaan diyaar u nahay allah i fududeeyo wixii ka qaban kara inaan ka qabta waana ku faraxsanahay maartay midnimada cidda inaan ka shaqeeya dhib iyo dheefba culaysana waa imaadaan faa'iidana waa imaadaan marka say maanta iskugu duuban yihiin meesha ay joogaan meel ka dheer ay tagaan aan xag ilaahay ka rajaynaa marka dad guddi hajar oo 9 qof oo ila shaqeeya marka dadkan meesha joogo qaraabaan wallahna ilaas lama yaqaano waxaan rabaa inaan dadka ambara marka waxa ka mid oo cid wax badan odanimo ugu soo shaqeeyay haddana wali odanimo sida u sii wada maanta aan xilkii ugu wareejiyay adeerkay tawana aadan cadow xuud cabdiraxmaan محمد عبد القير آذن علي راحي توانا محمد دعسي بشار قميص يا أنبياء عمر عداوي قد جنا وحكي كوبين سجال كاسد حوا قبل اللي إحنا ورق مرة كذا قرابته ماشي جونا وحنا ربعنا تكاس كل واحد غنان لكن ما أنت قدام بقى وقد إلى الشقية وعد أخرنتها بدف إلى الشقية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محمد كلمية 40 طبيان تي في قدام مقالة وجير